doonaa aynu eegaynaa cashirkan aynu ku eegi doonaa waxyaabaha inta badan qofka moobilkiisa ku dhaca isagoo weliba awoodin in uu aado xarun moobilada lagu cilad saaro ama aan haleelayn ama waqtigaabaan xilligaan laga heli karin meesha uu joogo. Okay, marka koowaad waxaad galaysaa marka koowaad waxaa dhacday inaad aragto cilada ay ka mid yihiin shay aad saas oo kale soo furtay message-kaas oo kale saas soo furtay oo aan markaad soo furtaan soo furmin oo kale ama cilad soo qoraya has stopping working oo kale Android has stopping working. Okay, ama waxyaabo kale oo error kale ku soo qoray marka waxaa dhacaysa in uu jam garoobay application-kan soo kicistiisa iyo faylashiisa inay wax ka sii noqdeen ama uu virus ba ka galay. Marka waa sida ugu habboon ee uu qofku ku xallin karo isagoo aan moobilkiisa format ku samaynin. Okay, setting ayaan tegaynaa. Setting markaanu tagno waxaynu ka galaynaa application markaynu galo waxaynu noo soo saarayaa applicationadii buu noo soo saaray waa kan. Masalan aniga hadda quraankaas application-ka quraankaan ka dhageysto ayaa mararka qaar wax soo qoraya cilad markaan geliyo kale. Marka waxaynu samaynaynaa storage ayaynu ka galaynaa marka application-ka saa ugu dhufano storage ayaad u dhufanaysaa. Waxaan leeyahay clear data ayaan leeyahay clear data maybe. Okay, waxaan samaynayaa dib ayaan soo noqonayaa waxaan isku dayayaa inaan hadda furo waa hadda hor markaan furo cilada ayuu soo qori jiray walow aanan hortiina ku tijaabin. hadda markaan soo furo maasha Allah caadi buu soo kacayaa bilaa cilad. Okay khayray marka waxaynu hadda kadib aan YouTube-kiina ka wadi karnaa ama bartan YouTube channel-ka ay ku qoran tahay Axmed Tech. wixii hadda ka dambeeya waxaynu samaynaynaa inaynu wax walba oo waxyaabaha fudud ay ugu badan yihiin oo ciladaha ku yimaada moobilkaaga siyaabaha aad u xallin lahayd iyo farsamooyin kale oo technical ahaan qofka looga baahan yahay inuu aad aqoon u yeesho computer iyo mobile bana oo soo geli doonaa. marka akhirta sharafta waxaynu ka codsanaynaa in like share iyo subscribe intaba ay noo badiyaan. marka wabillahi tawfiiq ayaan idin leeyahay cashirkeena maanta inta ayuu nagu hekaanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi